isku soo noqod wanaagsan waa anigoo ah Khalid Cabdi channelka adiga daawanaysa waa creatine mawduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay insha Allah creatine-ka sida loo isticmaalo waqtiga la isticmaalo iyo markaad isticmaasho waxa aad sameynayso iyo faa'iidooyinka uu leeyahay creatine okay horta marka ugu horeysa hadii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe like oo si share garee si uu asxaabta u gaaro ayna uga faa'iideystaan so insha Allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideysan doontaan video number 2 waxaan ka hadlaynaa horta creatine waxa uu fiican yahay marka aad garanaysaay aad tahay qof ma garanaysaay aan energy-giisu saa u sii badnayn so wuxuu ku siinayaa energy wuxuu ka caawinayaa in ay ma garanaysaay biraha marka aadan creatine ka qaadan kula yara culus inay ku fududaadaan so wuxuu ku siinayaa power talabaad waqtiga aad isticmaalayso horta creatine markasta waxa loogu talagalay in aad isticmaasho saacad ka hor inta aadan training sameyn ama aadan gym tagin ama aadan mad garanaysaa exercise ka aad u baahan tahay inaad sameyso aadan bilaabin hal saac ka hor ama hal saac kadib marka aad exercise ka sameyso ay aad mad garanaysaa ay ka soo dhamaato ayaad isticmaalaysaa insha Allah so markaad creatine ka isticmaasho horta marka koowaad waxa loo baahan yahay in aad biyo ku qasto kulli waxay ku xiran tahay inta aad waxay kulli markasta waxay ku xiran tahay inta aad u baahan tahay inaad isticmaasho biyo leeg marka waxa weeye marka aad creatine ka soo isticmaasho in aad horta ku dadaasho marka koowaad in aad jirkaaga hydrate oo biyo ku filan aad cabto markasta adoon xataa creatine-ki cabayn inaad markasta biyo badan cabto markasta ma garanaysaa jirkaagu uu qoyanaado biyahaas oo ka caawinaya xataa inuu jirkaagu kala baxo oo ma garanaysaa si degdeg u balaadho so insha Allah taas